soo dhawaada Jalial filimku wuxuu ku bilaabanayaa magaalada Los Angeles. Meg oo si fiican isu meeraya kadibna qorigiisa qaata ka hor intuusan gaarigiisa galin. Wuxuu shitaa qalab raadraaca oo si uu la socdo gaariga Mas'uud oo magaalada kula socdo. Markii Meg arkay tunnel wuu ka hormaraa si uu u xiro. Markii Mas'uud gadaal ka istaago, Meg wuxuu xirtaa maaskar wuxuuna furaa gadaasha dambe ee gaarigiisa. wax yar kadib Mas'uud ayaa u soo socda, sidaas daraadeed Meg wuxuu qaataa qorigiisa wuxuuna ku jeediyaa Meg. kadib markuu jeebkiisa hubiyo, wuxuu ku amraa inuu galo gadaasha dambe ee gaarigiisa. wuxuuna weydiiyay nambarka sirta ee taleefankiisa. Megna wuxuu u sheegayaa in biyo ugu sii jiraan gadaasha dambe ka hor intuusan ku xirin. kadibna wuxuu ka saaray qalabkii raadraaca ahaa ee uu bilo ka hor ku rakibay gaariga Mas'uud, wuxuuna xitaa xadaa taleefankiisa ka hor intuusan ku laaban gaarigiisa si uu u baxo. dhanka kale, ilma adeerada Ben iyo Cali waxay diyaariyeen qoryahooda ka hor intaysan galin dukaan dahab ah. mulkiilaha dukaanka Sami wuxuu siiyaa dheeman ay ku ridaan shandad. kadibna Sami wuxuu Ben u kaxeeyaa xafiiskiisa, wuxuuna u sheegayaa in dheemanka ku jira shandada ay yihiin kuwa been abuur, halka kuwa dhabta ay yihiin qiimahoodu $3 milyan. isla markaana uu ku qoriyo sharaabadadiisa. Mike wuxuu baakinka dhigtaa banaanka dukaanka, wuxuuna Sami u diraa fariin qoraal ah isagoo adeegsanaya taleefanka Mas'uud iskana dhigaya. ka hor intaysan ilma adeerada bixin, Sami wuxuu codsadaa inuu arko qoryahooda, kuma qanacsana qoriga Cali, sidaas daraadeedna wuxuu siiyaa mid cusub. kadib ilma adeeradu waxay raacaan gaarigooda, halka Mike uu daba socdo isagoo iska dhigaya Mas'uud. ugu dambeyn waxay istaagaan meel baarkin ah, sidaas daraadeed Mike wuxuu mar kale xirtaa maaskar, wuxuuna si ulkaca ugu dhawaadaa gaarigooda isagoo jebiyay muraayadooda. wuxuuna ku jeediyaa qorigiisa, wuxuuna tusaa taleefankiisa si uu u muujiyo baahin toos ah oo guriga Ben ah oo hanjabaad ah. Mike wuxuu ku qasbaa labadooda inay qoryahooda iyo taleefanadooda ku ridaan gaarigiisa. kadib wuxuu soo baxaa isagoo ku jeedinaya qorigiisa Ben, isagoo weydiinaya dheemanka dhabta ah, maadaama uu ogyahay kuwa shandada ku jira inay been yihiin. markii hore Ben wuxuu iska dhigay inuusan waxba ogeyn, sidaas daraadeed Mike wuxuu xusaa magaca xaaskiisa si uu ugu sii hanjabo. kadib Ben wuxuu siiyaa dheemanka dhabta ah, Mike-na wuxuu ku laabtaa gaarigiisa si uu u sii daayo Mas'uud. fursadan ayaa u ogolaanaysa in Cali uu qaato qorigiisa labaad. markii Mike uu ku soo laabtay gaarigiisa, wuxuu taleefanada dib ugu celiyaa Cali, kaas oo qorigiisa kusoo jeediyay isaga. gacantiisa oo gariiraysa awgeed wuu la seegaa xabadda, wuxuuna ku dhiftaa daaqada halkii uu toogan lahaa Mike. Mike oo aad u baqaya ayaa isla markiiba kaxeeya gaariga isagoo si xawaaro sare uga gudbaya magaalada, wuxuuna ku dhawaadaa inuu shil galo dhowr jeer. wuxuuna gadaal kaga dhacay gaari kale, laakiin wuu sii socdaa ilaa uu gaaro meel baarkin. halkaas ayuu daqiiqad ku qaataa si uu isu dejiyo ka hor intuusan ka saarin layniska indhaha. kadib wuxuu daboolaa gaariga, wuxuuna u wareegaa mid kale si uu u baxo. dhanka kale, Sharon waxay booqatay Stephen oo jooga guri weyn oo qurux badan si ay ugu iibiso caymis. kadib markuu tusay nidaamkiisa amniga, Stephen wuxuu soo saaray qori, wuxuuna Sharon u kaxeeyaa daaqada isagoo u sheegay inay toogato dhalo. Sharon weligeed hore uma isin ridin qori, sidaas daraadeedna way la segtaa. kadib waxay u guuraa miis ku yaala agagaarka barkada si ay uga wada hadlaan fursadaha caymiska. kadib Sharon waxay aragtaa haweeney dhalinyaro ah oo ag maraysa. waxay u malaysaa inay tahay gabadha Stephen, laakiin wuxuu u sharxaa inay dhab ahaantii tahay gabadha uu guursan doono. wax yar kadib, baariyaal Lou iyo Tillman ayaa yimaada goobta baarkinka si ay u baaraan dhaca. kadib waxay su'aalo weydiiyeen ilma adeerada, waxayna arkaan mid shaki leh in tuugu haystay macluumaad aad u fara badan, laakiin Ben wuxuu ku dhaartaa inuusan wax lug ah ku lahayn. waxaa darbiga ku rakibin kaamarad, laakiin waa la jaray. kadib Lou wuxuu u sheegayaa Tillman inuu u malaynayo intani ay tahay isla tuugii uu daba socday bilooyin ka hor, sababtoo ah waxay la jaanqaadaysaa dhammaan astaamaha. wax rabshad ah lama isticmaalo, kaamaraha waa la jaraa ka hor. wuxuu si sax u ogyahay waxa la qaadayo iyo goorta, wuxuuna ku baaba'aa ilbirqsiyo gudahood isagoo adeegsanaya jidka 101. halka Tillman uu ka shakisan yahay, wuxuuna shaaca ka qaadaya in sarkaalka ka sareeya uu u sheegay inuu bedelo lamaanihiisa. wuu diiday, laakiin Lou wuxuu u baahan yahay inuu ishagaajiyo, haddii kale waxay burburin doontaa wada shaqayntooda. markii Mike guriga tago, wuxuu dheemanka ku qariyaa koob. kadib wuxuu taabtaa madaxiisa, wuxuuna ogaadaa inuu dhaawac qabo oo ka dhashay daaqadii jabtay. wuxuu hubiyaa maaskarada, wuxuu ka helaa dhiig, taasoo ka dhigan inuu laga yaabo inuu dhiig ku jiro gaarigii uu ka tagay. kadib fiidkii, Mike wuxuu la kulmaa Money oo ah nin iibsada alaabta la xaday si uu uga iibiyo suuqa madow. Mike wuxuu qirtaa inuu ka walwalsan yahay shaqada xigta ee soo socota ee Santa Barbara, sababtoo ah waxay ku lug yeelan doontaa dad aad u fara badan oo rayd ah, mana doonayo in qofna waxyeelo soo gaarto. laakiin Money wuxuu kaliya u sheegaa inuu ka fikiro qorshe fiican. kadib markuu baxo, Money wuxuu sameeyaa wicitaan gaar ah. kadib Mike wuxuu ku laabtaa guriga, wuxuuna baaritaan ku sameeyaa shaqaalaha caymiska isagoo si gaar ah fiiro gaar ah ugu yeesha profilka Sharon. maalinta xigtay, shirkadda caymiska waxay ka hadlaysaa dheemankii la xaday, waxayna Sharon loo diraa inay la hadasho booliska. arrintan way ka xanaajisaa sababtoo waxay warbixinta Stephen siiyeen qof kale. saldhigga booliska, Tillman iyo Lou waxay su'aalo weydiinayaan Sami, kaasoo ka xumaada tuhunka khiyaanada. Samin wuxuu sharxayaa inuusan cidna kala hadlin dheemanka, islamarkaana uu kaliya diray email, taasoo ka dhigan in la jabsaday. gudaha makhaayadda, Mike wuxuu lacag siinayaa hacker si uu xog uga helo baraha bulshada ee Sharon, emailkeeda, jadwalkeeda iyo fariimaha taleefankeeda. dhanka kale, Orman wuxuu kaxeeyaa mooto xawaare aad u sareeya ilaa uu ka gaaro meel baarkin ah oo Money ku sugayo. Moneyna wuxuu u sharxayaa in Mike uu lumiyay kalsoonidiisii, islamarkaasna uusan doonayn inuu qabto shaqada Santa Barbara, sidaas daraadeedna uu rabo Orman inuu qabto halkiisa. habeenkaas Mike si degan ayuu u kaxaynayaa gaarigiisa, laakiin si lama filaan ah gaari kale ayaa gadaal kaga dhaca. kasoo degta Maya, taasoo isku dayaysa inay weydiiso macluumaadka caymiska, laakiin Mike wuxuu soo bandhigay lacag cadaan ah si uu u bixiyo khasaaraha. maadaama gaariga u yahay kan madaxdeeda, micnaha booskeeda, Maya waxay ku qasbanaanaysaa inay arrinta u marto nidaamka rasmiga ah. sidaas daraadeed waxay ku qasbaysaa inay macluumaadka isdhaafsadaan.
baxsadaan. maalinta xigta Sharon waxay la kulantaa Lou waxayna u sharxaysaa in shirkadda caymiska ay rabto in Sami iyo Madara lagu sameeyo baaritaanada mashiinka beenta. Lou wuu garan karaa in shirkaddu ay rabeen inay bixiso lacagta wuxuuna aflagaadiyaa xeeladahooda. Isdaraadina Sharon iyadana waxay dhaleecaysaa nidaamka booliska ee musuqmaasuq ah. dood ayaana dhex martay labadooda. Sharon waxayna u sheegtaa in tirikoobyadu muujinayaan in arrintan ay tahay arrin gudaha ah. tani waxay siisaa Lou fikrad sidaas daraadina uu ka baxa. xilliga booliska Lou wuxuu u yeeraa kooxdiisa kulan wuxuu soo bandhigaa khariirad muujinaya 290 dhac oo dhacay 4 sano ee lasoo dhaafay. wuxuu ka saaraa kuwa leh astaamo gaar ah sida qiimo ka yar 500,000 aan lahayn gaari gaadiid sidoo kalena isticmaalaya rabshad ama ka tagay DNA ama caddayn kale. dhacyada soo horay waxay sameeyeen qaab ku yaala wadada 101. Luuna wuxuu qiyaasayaa in dambiilahan uu jabsado isgaarsiinta dukaamada dahabka si uu u ogaado goorta alaabtooda dhaqaajinayo. wuxuu aaminsan yahay in dhaca xiga uu ka dhici doono dhanka waqooyi. kulanka sarkaal sare ayaa canaantay Lou sababtoo ah soo bandhigtiisa. wuxuu tilmaamayaa in qaar badan oo ka mid ah kiisaska hore looga shakisan yahay dad sidoo kalena hore loo xukumay. daraadina dib u furistooda waxay dhaawici doontaa heerka xalinta kiisaska ee waaxda. mudnaantoodana waa inay tirooyinkooda sare ahaadaan. sidaas daraadina Lou uma helo fikradiisa taageero. isla waqtigaas Orman wuxuu dhigtaa mootada banaanka bangiga wuxuuna daawanayaa nin wata shandad oo gaarigiisa galaya. waxyar kadib ninkaas wuxuu gudaha u galaa dukaan dahab oo ku yaala Santa Barbara. Orman wuxuu la soo boodaa baskooladiisa isagoo gudaha dib ugu riixaya isagoo qorigiisa ku haya. isku daya inuu qaato shandada wuxuu ogaadaa inay ku xiran tahay gacantiisa silsilad. kadib Orman wuxuu amraa qof walba inuu dhulka jiifsado. wuxuu hubiyaa xafiiska dambe laakiin waxaa ku jira kaliya ilmo yar. kadib markuu haweeney ku dhifto qoriga wuxuu ku jeediyaa ninka wuxuu weydiiyaa furaha. ninka wuxuu u sheegay inuu gaarigiisa ku jiro. Orman uu daaqada ka eego ma arko wax gaari ah taasoo ka caraysisa wuxuuna bilaabaa inuu ninka ka garaaco wejiga ilaa uu qirto furaha inuu ku jiro qoortiisa. dabeen ninka wuxuu furaa silsilada. Orman wuxuu qaataa shandada isagoo diyaar u ah inuu baxo. haatee wuxuu arkaa inay jiraan dahab kale oo qiimo badan oo dukaanka yaal. sidaas daraaddeedna wuxuu timaha ka qabtaa shaqaale wuxuuna ku qasbaa inay furto armaajooyinka. markii haweeney miskiinta ahayd ay dhammaan dahabkii gurida bacdiisa qof walba inay dul jiifsadaan ninkii ugu horeeyey. markuu isku dayo inuu baxo wuxuu ogaadaa inuu albaabku xiran yahay taasoo ka dhigan inuu dib u laabto si uu u taabto batoon si uu albaabku ugu furmo. si degdegana uma dhaqaaqo albaabkana mar kale ayuu xirmaa. sidaas daraaddeed wuxuu tagtaa mid ka mid ah armaajooyinka si uu shaqaalaha ugu qasbo inuu dhaqaaqo. arrinka ayaa bilaabay inuu qayliyo. nin ayaa riixay batoonka. ugu dambeyn Orman wuu baxsadaa. Mike wuxuu fariin u diraa Maya si uu la kulmo. fiidkii waxay ku kulmaan maqaayad aad u qurux badan. Agna wuxuu dhigay inay horumarin software oo safriisu aad u far badan yahay. waxay qirtaa inaysan ku raaxaysanayn meel sidan oo kale ah. sidaas daraaddeed Mike wuxuu sharxay in halkan uu keenay inay ku fiican tahay ballamaha ka bedelaan goobta waxayna ku dhamaada inay cunaan cuntada wadada. waxayna wada sheekaystaan in muddo ah kadib waxay ku guulaystaan inay sahmaan inkastoo ay kala duwan yihiin. dadka kulanka Maya waxay ogolaataa inay mar kale kulmaan. markay tagto Mike wuxuu wararka ka ogaadaa dhacii uu sameeyay Orman. dadka maqaayadda Lou wuxuu la hadlay xaaskiisa taasoo sheegaysa inay khiyaamaysay. markuu soo waco tilmaam uu iska indhatiraa si uu diirad u saaro wada hadalka. xaaskiisa waxay sheegtay inay ka guurayso guriga laakiin Lou wuxuu u sheegay inuu isaga uu guurayo waxayna isdhaafsadaan hadallo intuusan ka soo bixin ka hor. kadib Lou wuxuu ku beeriyaa kooxiisa dukaanka dahabka baaraysa. tilmaam wuxuu tilmaamaa in dhacna ula jaan qaaday aragtidii Luman uu soo jeediyey maadaama dukaanka ku yaalo dhanka waqooyi. laakiin Lou wuxuu aaminsan yahay in yahay tuugani tuug cusub maadaama tuugii hore uusan isticmaalin wax rabshad ah. dhanka kale Mike wuxuu la kulmaa Money wuxuuna ku eedeeyaa inuu isticmaalo macluumaadkii uu soo ururiyay balse uu u diray nin kale. Mike wuxuu dareemayaa in Money uu khiyaamay kalsoonidiisa sidaas daraaddeedna haddii mar kale ay dhacdo uusan la shaqayn doonin. Money oo xanaaqsan ayaa xasuusinaya Mike inuusan waxba ahaan lahayn la'aantiis laakiin Mike si fudud ayuu uga dhaqaaqaa. shirkadda caymiska Sharon waxay daawanaysaa Sami oo qaadanaya baaritaanka mashiinka beenta. wuxuu aad uga xumaaday tuunka lagu hayo wuxuuna aflagaadiyaa Sharon iyo shirkadeeda. kadib Money wuxuu u sheegay Orman in Mike uu qorsheynayo wax cusub sidaas daraaddeedna uu rabo inuu Orman uu dabagalo isaga halkii uu sameyn lahaa dhaca xiga una u ogolaado inuu sameeyo kadibna isaga uu ka sii dhaco. qaabtii Orman wuxuu daawanayaa Mike oo la kulmay hackerka. dhammaan macluumaadka waxaa lagu qariyay website fudud. sidaas daraaddeed Mike wuxuu helaya qoraal sharxiya sida loo galo. kadib markuu baxo Orman wuxuu hubiyaa taleefankiisa taasoo muujinaysa inuu ku rakibtay qalab raadraaca gaariga Mike. guriga Mike wuxuu daraasiyay macluumaadka Sharon wuxuuna ogaadaa jadwalkeeda. maalinta xigta wuu daba socdaa ilaa ay tagto maqaayad. markay rabto inay baxdo wuxuu isku dhigayaa inuu yahay macmiil kale la sheekaysta iyada isagoo kala hadlaya gawaarida. gudaha saldhigga booliska Lou iyo Tilman waxay eegayaan dhammaan muuqaalada dhacdada. Lou wuxuu ugu soo gabagabeeyaa in tuugga uu bedelay gawaarida wuxuuna rabaa inuu baaro aaga. midkii Maya waxay timaadaa guriga Mike si ay u yeeshaan kulan kale. waxay ogaataa inuusan lahayn waxyaabo gaar ah ama sawirro qoyskiisa ah. sidaas daraaddeed wuxuu u sheegayaa inuusan xiriir lahayn wuxuuna sidoo kale u sheegayaa inuu kusoo koray faqri sidaas daraaddeedna uusan caado u lahayn inuu keediyo waxyaabaha qaar. kadib Maya waxay shidaa muusig waxayna ku qanacsan inuu la ciyaaro qoob ciyaar. kadib arrintu si degdeg ayay isku koraan ilaa ay isku beddesho ficilo dhow. dhameeyaan Maya waxay bilaabaysaa inay la besito laakiin Mike wuxuu ku qancay inay la sii joogto. xiga Mike wuxuu u baxaa balkoonka si uu u qaato hawo cusub wuxuuna arkay iftiin fog oo ka imaanaya meel fog taasoo muujinaysa inuu joogo Orman. markuu arko Orman oo mootidiis ku baxaya Mike si degdeg ayuu u soo orday gaarigiisa wuxuuna baarayaa meel kasta ilaa uu ka helo qalab raadaaca taas oo isla markiiba uu ka saaro. kadib wuxuu sameeyay wicitaan si uu meel kale u kareysto. xigta Orman wuxuu dhigaa nin wax keenaya wuxuuna si xoog u galaa guriga hackerka. wuxuu ku tuuraa qolka dhexdiisa ka hor intuusan korkiisa fariisan si uu qorigiisa ugu jeediyo afkiisa isagoo dalbanaya inuu u sheego waxa uu u qabanayay Mike.